waxyow qarmuunka maanigaad i tuuraysaa waxaad aqoon kuugu laaban qofkaan anigu ahay xadkaaga dadna ku ekaan waad ka salaayaysaa taliya iga raali noqo sarkaal dharbaaxada aad igu dhufatay waad ka shalayn doontaa halow waa ku salaama aabbo hay gabadhaydii sidee tahay aabbo gabadhaydu dhegtas qaba bal waa cimri dheer tahaye haddan kaa hadlayabe waa beentaada hadda iga hadlays maxaa teleefon iigu soo diri weysay maya gabadhayda waxa waaye bes aabbo hadalka halaalaaban waxbo anigii adiga haddaan wada hadlayno waa anagoo is hor joogna inaan hadalnaa weliba aabbo haddaan hadlaynaa hadda gabadhayda adigii bambay ayaad jirtaa sidee hadda maaha aabbo bambay waan ka imaaday guriga ayaana jooga 5 daqiiq kadib waa iigu imaan kartaa gurigaan joogaa gabadhaydii 5 daqiiqa warsug haddaan ku imaanayaa gabadhaydi imaashadaada horta runtii anigu waan ku faraxsanahay laakiin waxa meesha ku jirta maxaad igu soo keydeen aabbo shaqada aan hayo aniga fursad ma helaayo adigu kuugu arko marka sida aan adigu kuu arko ayaan halkaan u imaaday aabbo aniga waana kuu soo xiisa adiga shaqadan adiga ayaa garab igu siinaya aabbo shaqada maxaad ka wadaa xabsiga adiga aabbo xukuntid waa xabsi qadiin ah marka aniga ninka aan u shaqeeyo waxaan dhahay xabsigaasna waa xabsiga ingiriiska dhiseen anigana waxaan dhahay sheeko ayaan ka soo qorayaa bas waa intaasoo keliya aabbo runtii gabadhayda howlkar ayaa tahay aabbo goormee shaqada ii geynaysaa hadda laakiin adiga maantay ma anigaad ila sheekaysanaysaa ma shaqadaadii adigaan kula sheekaysanaya waayahay maanta ii sheekay beriyaa shaqadaada aadaysaa haye dhinacee ka bilaabaynaa dhinacaasaan ka bilaabaynaa intana waa maxay waa jikada intaan ka bilaabaynaa nakaahe cuntadan ma siisin maxaabiista haa gabadheeda maalin walba waxaa loo kariyaa 5 loor oo bariid ah iyo maraqiisa maalinta khamiistaana si sax ayay u helaan raashinkan ayaga ayaa loogu talagalay waa fahmay gabadhan waxaa dhalay sarkaalka sharmaa dabkan maxaa lagu sameeyaa dabkan rootigooda loogu dubaa habeenkii cashaan loo siiyaa كاي وريني حرقميو ماي حيدورن انت وريني عليا نكاي عليا وريزيدا وريني فوقها وريدايا انقى عليا انت sida libaaxii oo kale waxba hay xariiqin haddaad nafaga tahay kaalay oo iska cel aniga
to gold. Turn to Benson and Hedges. shalay markaan nimankaas garaacaysay indhahaaga holac ayaa ka baxaayay fishaal aniga shalay feelkaaga ayaa akhriyey mana ilaaha inaad dilaa tahay qofkaasna waxay la tahay gardaro inuu kuu geystay adigana sidaasaa ku dishay aniga dilaa ayaan ahay weliba hal ma aha 4 qofood ayaan dilay midaasna aniga kama xumin waxaan ahayna waan ku faraxsanahay aniga laakiin maxay tahay sababta kugu kaliftay dadkaas inaad dishid ii sheeg adiga maxaad ka faa'iidaysaa haddii aad ogaatid qisadeeda aniga journalist ayaan ahay waxaan rabaa noloshaada hore dhibaatada soo martay inaad iiga sheekaysid si aan journaalka ugu qoro waxaad doonaysaa nolosheeda hore inaan kaaga sheekeeyo journaalka ku qortid kadibna aad magac ku yeelatid saas maaha fishaal adiga waa ku baryaa aniga ma doonayo qisadeeda hore inaan xasuusto hanay xasuusinin maxaa dhacay oo ii daba taagan tahay aniga si dhib leh ayaan ku ilooway qisadeeda hore si saaxiibtinimo aan iigu sheegabo sheekadaada adiga haddaa raba inaan walaasha oo kala noqdo aniga ayaa raba inaad walaalkay noqotid aboowe qofkii sumcaddeedii aniga sharafteeda ii badbaadiyey xaq uma lihi miya inaan dhibkiisa la qaybsado adiga haddaa raba inaan wax ii sheegin aniga kuma qasbaayo maanta oo bamba ayaan iskaga laabanaa dhegayso aniga hadda ka hor cidna uma sheegin qisada aan anigu soo maray taasna waxaa ugu wacan weli ma helin qof istaasha qisadeeda aan u sheego laakiinse adiga waa iga istaasha inaan kuu sheego aniga waxaan ku noolaa nolol heer sare ah oo aad u fiican